kulan wanaagsan daawade kuna soo dhawow warbixintan xiisaha leh oo aynu ku sharaxayno xeeladda indhasarcaad kamid ah kuwa uu soo bandhigay indhasarcaadiyaha Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Maahir. waa indhasarcaadkii ugu cajiibsanaa uguna halista badnaa ee uu jilay, sidaas oo ay tahay waxa uu ahaa indhasarcaad xiise geliyay dad badan oo toos masrax uga daawaday iyo kuwa baraha bulshada kala socday. waxaan isku dayaynaa in aanu ku soo bandhigno xeeladda indhasarcaadkan oo dad badan soo jiitay. marka hore waxaanu ka codsanaynaa in aad warbixinta like saartid, waa codsi si aan u aragno heerka ka helitaanka warbixintan iyo xiisaha ay xambaarsan tahay. dad badan ayaa daawaday, la yaabay, ku jahawareeray kadibna noo soo diray qaarna naga dhex wacay journalist kale oo muuqaalka la soo dhigay si aan ugu sharaxno xeeladda uu adeegsaday indhasarcaadiyuhu. Maahir waa indhasarcaadiye da'yar oo Soomaali ah, kaas oo hibe u leh soo bandhigidda indhasarcaadyada, gaar ahaan kuwa cajiibka ah ee u dhigma xeeladaha ay soo bandhigaan indhasarcaadiyaasha kale ee caalamka. Maahir maadaama uu masraxyada ku soo bandhigay indhasarcaadiyo badan oo xiise xambaarsan, ayaanu warbixintana ku soo qaadanaynaa indhasarcaadkii ugu dambeeyay ee uu ku soo bandhigay tartankii hibooyinka gaarka ah ee Muqdisho Got Talent, kaasoo ahaa indhasarcaad uu sakiin laqayo kadibna uu afkiisa ka soo saarayo dhowr xabo oo sakiimo kale ah, kuwaasi oo hal dun iskula taxan. si aan ku xasuusiyo, indhasarcaadiyaha ayaa masraxa soo fuulaya isaga oo dadweynaha iyo garsoorkaba tusaya hal xabo oo sakiin ah. weliba waa sakiin dhab ah oo la arki karo in ay wax jarayso. kadib carabka ayuu saarayaa, wuxuuna dadweynaha u sheegayaa in uu sakiintaas laqay. caawiyaha ama wariyaha barnaamijka ayaa u dhiibaya koob ay biyo ku jiraan oo masraxa ku sii diyaarsanaa. kadibna indhasarcaadiyihii ayaa biyaha afka saaraya, isaga oo dadka u sheegaya in uu sakiinta ku laqayo. dhowr xabo oo kale ayuu sidoo kale yeelayaa. maxaa intaas kadib xiga? waxa xiga isaga oo afkaba ka soo saaray dhowr xabo oo sakiimo kale oo dun ku wada xiran. yaab, qof kasta waxaa la soo dirsaya fajac iyo amakaag. xitaa baraha bulshada ayuu si weyn u qabsaday hadalhaynta indhasarcaadkaasi iyo xeeladda uu Maahir adeegsaday. xaqiiqdii waa xeelad adag oo uusan ku dhiiran karin indhasarcaadiye kasta, sababtoo ah waaba arin halisteeda leh. sidaas oo ay tahay, Maahir wuu u bareeray, wuuna soo bandhigay. Itaal Media waxay isku dayaysaa in ay sharaxdo xeeladda la adeegsaday iyo farsamada dadka aragtidooda lagu qiyaanay. haddaba sidee loo sameeyay? marka ugu horeysa oo aanu aragno indhasarcaadiyaha oo afkiisa sakiinta gelinaya, waanu ku wareereynaa. waxaanu u qaadanaynaa in uu laqayo sakiinta oo uu dhuunta marinayo. laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay marnaba ma laqin ama ma dhunjin sakiinta ee waxa uu ku qabtay oo uu ku hayaa afka, weliba qaybta midig. si xirfadaysan ayuu afka ugu hayaa. daawadayaashu suurtagal uma aha in ay si buuxo u arkaan sakiinta afka lagu hayo, xitaa marka uu carabka bannaanka u soo saaro, sababtoo ah way kala fog yihiin halka ay fadhiyaan iyo masraxa uu indhasarcaadiyuhu saaran yahay. markuu indhasarcaadiyuhu soo qabanayo cabitaanka oo uu wariyuhuna noo sheegayo in sakiinta lagu laqayo, gebi ahaanba waxba kama jiraan. kaliya sakiinta ayaa afka laga soo saaraya oo koobka lagu tufaya. sakiinta labaad ee uu haddana afka gelinayo, isla halkii ayuu geynayaa oo afka ayuu ku qabanayaa. sidaas darteed ma jirto sakiin la laqay lana laqi karo. laakiin sidiisaba indhasarcaadka ayaa ka kooban xeelad iyo farsamo aragtida dadka lagu qiyaano. markasta uu Maahir koobka afka saaro oo aan u aragno in uu cabitaan ka cabayo, sidaas maaha ee waxa uu dib u soo celinayaa sakiintii afka ugu jirtay. kadibna mid kale oo hor leh ayuu afka gelinayaa. laakiin annagu waxaanu u malaynaynaa in ayada oo sakiintii hore uu laqay, haddana uu mid labaad iyo mid saddexaad uu ka dabageeyay. si aan kuugu xaqiijiyo, waxaanu soo qaadanaynaa xeelad kale oo tan la mid ah oo hore loo sameeyay. maadaama kaamirooyinka barnaamijka lagu qabtay aysan ku filnayn in muuqaalada si dhammaystiran loo helo, waxaan tusaale kuugu tusayaa bandhig kan la mid ah oo uu sameeyay indhasarcaadiyaha u dhashay Japan
ee lagu magacaabo Tampa. waana ninka caanka ku ah in nasracaadkan lagu matalayo in sakiimaha la laqayo. fiiri marka uu nasracaadiyaha Tampa iska dhigayo in uu koobka cabitaan ka cabayo, kadibna si xeeladaysan uu sakiinta ugu tufayo koobka. waa mid muuqata oo la arki karo. hadda waxaad isweydiinaysaa haddii sakiin kasta oo uu maahir afka geliyay uu dib koobka ugu soo tufay, xaggee bay ka yimaadeen sakiimaha badan ee isku taxan ee uu afka ka soo saarayo? sakiimahan dunta ku tixan maaha isla kuwii uu afka geliyay ee waa kuwo kale ee u sii diyaarsanaa oo uu dunta ku tixay ka hor intii uusan masraxaba soo fuulin. afka dhanka bidix ayuuna ku hayay. laakiin goorma ayuu afka geliyay? waa su'aal kale oo isweydiin leh. wuxuu geliyay wax yar ka hor markii uu bilaabayay nasracaadka qaybtan uu sakiimaha ku jilayay. ila arag marka uu masraxa dhanka kale uga sii jeesanayo, kadibna inta uu jaabka ka soo saaro uu afkiisa ku sii cabaynayo sakiimaha. xilligan waa mar uu dhameeyay qayb nasracaadka ku saabsan oo turubka uu ku jilayay, kadibna laga sugayay qaybtan kale ee sakiinta. markaas ayuu afka sii geliyay sakiimaha isku tixan ee dunta ku xiran. soo saariduna si taxadar leh ayuu afka uga soo saaraya isagoo carabkiisa ku toosinaya. aan u soo laabanno tusaalaha aanu ka soo qaadanayno in nasracaadiyaha Tampa. fiiri afkiisa dhanka midig oo haddii si sugan loo fiiriyo la arki karo sakiimaha uu afka ku hayo. laakiin waqtiga intaas la eg sidee buu maahir afka ugu hayay ayaad isweydiinaysaa. sidoo kale sakiintu miyaysan qalin? waa su'aal kale. waxaanu dhihi karnaa kuwaas waa xeelado iyo adkaysi isaga u gaar ah. waxaan filayaa inaad ka heshay warbixinta oo aad mar hore like saartay. sidaas darteed waxaan rajaynaynaa in aanu arki doonno aragtidaada ku saabsan qodobkan aynu ku sharaxaynay xeeladda nasracaadkan. waxaanu soo diyaarin doonaa warbixino kale oo xiiso badan oo aynu ku sharaxayno xeeladaha nasracaadyada, ha noqdaan kuwa ay jilaan nasracaadiyaal Soomaali ah iyo kuwa kale oo caalamka. waanu kaaga mahad celinaynaa daawashada iyo sida aad uga falcelisay warbixinta. inta aynu ku wada kulmi doonno warbixin kale, sidaas iyo nabadgelyo.